Finanka ka soo baxa wajiga iyo qaybaha kale ee jirka waa dhibaatooyinka ugu badan ee saameeya maqaarka iyo quruxda qofkaba. Muuqaalkan ayaan kugu sharxayaa waxyaabaha sababo iyo qaabka ugu fudud ee si baabi'i kartid finanka ka soo baxa wajiga. Sidoo kale, muuqaalka qaybtiisa dambe waxaan ku sii doonaa talooyin ka anfici doono inaad ka hortagtid finanka ka soo bixi lahaa wajiga. Ee soo dhawo oo ila dhameysa muuqaalkan. Marka ugu horeyso waa maxay finanka? Finanka ama sidoo kale wax loo yaqaan findoobka waa nabaro yar oo ka soo baxa wajiga iyo qaybaha kale ee jirka. Qaybaha kale ee jirka ee nabarada ka soo bixi karaan waxaa ka mid ah garbaha, xabadka iyo sidoo kale dhabarka. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah qaab noocee ah ayay ku sameysmaan finankan? Finankan inta badan waxaa sababo qanjiro yar oo ka hooseeya maqaarka wajiga hoostiisa. qanjiradaasi waxaa loo yaqaanaa sebaceous glands. qanjiradaasi sida caadiga ah waxay noo soo saaraan saliidda wajiga. Marka xaaladan finanka ah waa marka ay xirmaan qanjiradaasi loo yaqaano sebaceous glands. qanjiradaasi waxay ku xirmi karaan inuu qanjirka soo daayo saliid aad u badan kadibna uu xirmo duleelka uu maqaarka ka soo deeli lahaa qanjirkaas. Sidoo kale wuxuu ku xirmi karaa in ay bacteria iyo virus meesha ay xirto iyo sidoo kale wasakh inay meesha xirto. Sida caadiga ah maqaarka jirkeena waxaa ku yaalo duleelo yar. Marka duleeladaasi ayay ka soo baxaan saliidda. Marka qanjirada aan sheegayno ee saliidda soo daayo markay xirmaan ama duleelkaasi markuu xirmo, qanjirkaas wuxuu saliidda ku soo daynayaa qayb ka mid ah maqaarka. Markuu saliidda ku soo daayo qayb ka mid ah maqaarka, waxaa dhacayso inuu maqaarka soo weynaado, halkaasna waxaa ka dhalanayo fin ama waxaa ka dhalanayo findoob wax loo yaqaano. Haddaba waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah maxaa sababo ama maxaa keeno finanka ka soo baxa wajiga. Sidaan hore u soo sheegay, waxa ugu badan ee sababo finanka ka soo baxa wajiga waa in uu wajigaaga soo daayo saliid aad u badan. Saliidda uu soo daayo wajigaaga waxaa loo yaqaanaa sebum. Marka saliid badan markuu soo daayo wajigaaga waxaa dhacayso in duleelada yar oo maqaarka uu leeyahay ay xirmaan. halkaasi waxaa ka dhalanayo finan. Sidoo kale waxyaabaha sababi karo inay finan soo baxaan waxaa ka mid ah isbedel inuu ku yimaado hormoonada jirka, gaar ahaan xilliga qaangaarka gabar iyo wiilbo. Sidoo kale isbedelada ku yimaado hormoonada jirka gaar ahaan xilliga uurka way sababi karaan finanka ka soo baxa wajiga. Sababta oo finanka looga bixiyo findoobka ama ay u soo baxaan xilliga qaangaarka waa isbedelada ku yimaado hormoonada jirka. qofka markuu gaaro xilliga baaluqa ama xilliga qaangaarka waxa isbedelo ku yimaadaan hormoonada jirka. Marka waxa weynaanayo qanjiradii soo daay lahay saliidda, sida qanjirka sebaceous gland uu isbedelaya uu weynaanaya. Marka wuxuu sababay inuu saliid badan uu soo daayo kadibna finanka wajiga ka soo bixi lahay way badanayaan. qaab noocaas ah ay isbedelada hormoonada ay ku keeni karaan finanka ka soo baxa wajiga. Sidoo kale waxyaabaha sababi karo inay finanka soo baxaan waxaa ka mid ah gacmahaaga oo ku taabatid wajigaaga. Inteena badan waan sameynaa inaan gacmaheena ku taabano wajigeena, laakiin waa khalad. Haddii aad rabtid inaad ka hortagtid finankan, waa inaad gacmahaaga ka ilaalisid wajigaaga. Sababtoo ah gacmahaaga oo wasakhaysan ama bacteria iyo virus leh haddaad wajigaaga ku taabatid waxay sababi karaan in duleelada yar ee maqaarka ku yaal ay xirmaan. halkaasna waxaa ka dhalanayo finan. Sidoo kale waxyaabaha sababi karo inay finanka soo baxaan waxaa ka mid ah allergiga ama xasaasiyadda. waxaa jiro dadka qaar inay allergy ku leeyihiin ama inay xasaasiyad ku leeyihiin waxyaabaha carfayo. Tusaale ahaan dadka qaar waxay allergy ku leeyihiin kareemada wajiga la marsado ee carfayo. dadka qaarna waxay allergy ku leeyihiin saabuunada carfayo ee wajiga lagu dhaqdo. marka waa muhiim inaad ogaatid waxyaabaha aad allergy ku leedahay kana fogaatid si aad uga hortagtid finanka ka soo baxa wajiga. waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah sideen uga hortagi karaa finanka wajiga ka soo baxo ama sideen uga hortagi karaa guud ahaanba finanka. si aad uga hortagtid finanka ka soo baxa wajiga, marka koowaad waa inaad dhaqdid wajigaaga maalin walbo 2 jeer. waxaana ku dhaqi kartaa waji dhaqaha aan lahayn wax saliid ah. marka haddii aad isticmaashid waji dhaqe ama wax loo yaqaan face wash, waxaad isticmaashaa nooca aan lahayn wax saliid ah ama wax loo yaqaan free oil face wash. noocyada shaashada kaaga muuqdo
waa noocyada ugu badan ee weji dhaqe ama face wash oo aan lahayn wax saliid ah. marka haddii aad isticmaalaysid face wash waxaa ka fiirinaysaa qaybta ay ku qoran tahay free oil oo la micno ah wax saliid ah inay ku jirin ayaa muhiim ah. sidoo kale qaabka labaad ee aad uga hortagi kartid ama aad iskaga ilaalin kartid finanka ka soo baxa wejiga waa inaad ku dhaqdaa wejigaaga biyo diiran. biyaha diiran waxay ka caawinayaan inuu wejigaaga noqdo mid nadiif ah, sidoo kale uu ka saaro wasakhda iyo bakteeriyada wejigaaga lahaay. sidoo kale waxaad uga hortagi kartaa inaad isticmaashid maro nadiif ah markaad wejiga qalajinaysid ama wejiga markaad soo dhaqatid. waa inaad isticmaashaa maro u gooni ah wejiga oo nadiif ah. waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah sidee loo daaweeyaa finanka ka soo baxa wejiga. inta badan finanka ka soo baxa wejiga wax dawo ah looma isticmaalo oo ayaga ayaa iska baaba'o, balse waxaan kugula talin lahay marka koowaad inaad isticmaashid ama wejigaaga aad ku dhaqdid weji dhaqaha aan lahayn wax saliid ah ama aan lahayn wax dufan ah. si aan hore u soo sheegaybo weji dhaqayaasha aan hore ugu soo sheekeeyay ee aan lahayn wax saliid ah ama wax kuwa loo yaqaan oil controlka, kuwaasi ayaa u fiican dadka leh finanka. sidoo kale waxaa kugula talin lahay inaad iska ilaalisid saabuunada carfaayo kale inaad ku dhaqdid wejigaaga. inta badan waxaa fiican inaad isticmaashid weji dhaqe aan lahayn wax saliid ah. marka iska ilaali inaad isticmaashid saabuunada carfaayo ama waxyaabaha allergiga keeno ee wejiga lagu dhaqo. sidoo kale waxaan kugula talin lahay inaad ka fogaatid cuntooyinka ay ku badan tahay dufanka. sidoo kale waxaan kugula talin lahay inaad iska joojisid inaad taabatid finanka ka soo baxa wejiga. haddii jiraan finan ka soo baxay wejigaaga ka ilaali mar walba gacmahaaga. haddii aad burbursid ama aad taabatid waxay kaaga darayaan caabuqa ama waxay ka sii darayaan finankaas inay sii fidaan ama uu sii weynaado. marka ka ilaali mar walba gacmahaaga. sidoo kale waxaan kugula talin lahaa inaad iska ilaalisid cuntooyinka ay ku badan tahay dufanka oo aad bedelkooda badsatid khudaarta. sidoo kale isku day mar walba inaad gacmahaaga ka fogeysid wejigaaga, sababtoo ah waxay ka sii daraysaa caabuqa ama waxay siyaadinaysaa finanka ka soo bixi lahaa wejiga. sidoo kale waa inaad wejigaaga dhaqdid maalin walbo 2 jeer ilaa 3 jeer adigoo isticmaalaya biyo diiran iyo weji dhaqe aan lahayn wax saliid ah. halkaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkii koobnaay ee aan kaga hadlayay finanka ka soo baxa wejiga iyo qaabka loo daweyn lahaa. anigoo kaaga mahadcelinayo daawashada muuqaalkan, waxaan ku rajaynayaa khayr iyo caafimaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.